guurka iyo dhaqanka Soomaalida xoolaha la siiyo reerka gabadha laga guursanayo waxaa la yiraahdaa yarad. Naagta la guursaday xoolaha ay soo raaciyaan reerkooda waxaa la yiraahdaa dhibaat. Naagta la furay xoolaha la siiyo waxaa la yiraahdaa meher. Naagaha intay koox isku raacaan u guur doonta deegaan kale waxaa la yiraahdaa heerin. Gabadha nin la siiyay ee u doonan waxaa la yiraahdaa alkun. Gabadha guurka ka daaday waxaa la yiraahdaa gumays. Wiilkaan wali guursan waxaa la yiraahdaa doob. Ninka naagaha badan waxaa la yiraahdaa godadle. Gabadha aadka u dhaqanka wanaagsan waxaa la yiraahdaa gaari. Gabadha qaangaarka ah ee aan wali guursan waxaa la yiraahdaa gashanti. Naagtu haddii ay ilmo meyd ah dhasho waxaa la yiraahdaa dilan. Haddii ay hal mar laba madax canug dhashaanna waxaa la yiraahdaa mataano. Gabadha reerkoodu lagala baxsado waxaa la yiraahdaa masaafo ama dhabar garaac. Ninka iyo naagta isguursanayo habeenka ugu horeysa ee la aqal geynayo waxaa la yiraahdaa galbis. Ninka iyo naagta isguursanaya maalinta arooska naagta iyo ninka ay soo wataan waxaa la kala yiraahdaa malxiis iyo malxiisad ama manxiisa iyo manxiisad. astaanta lagu kala garto in meeshu aroos ka jiro waxaa la yiraahdaa mashxarad ama alalaas ka baxaya waa aroos haddaba haddii aad ka hesheen waan soo badin doonaa barnaamijyada noocan oo kale ah. commentiga inoogu reeba noo soo badiya. haddii markaasina wax kale aad ku darsanaysaan welcome guys, waan idin soo dhaweynaa. ha iloobina janalka inaad tiraahdaan subscribe, like and videoga saartaan. waad mahadsantihiin. tan intaynu barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo guys.